waalid u fiirso xilli waxaan ku jirnaa waalidiin badan ay guriga ka eryayaan wiilashooda iyagoo kule gaang buu ku biiray intii meelaha lagu soo dili lahaa ha idhaafo ilmaha ay dhaleen ayay guriga waxay uga eryayaan gaang buu ku biiray sidaa darteed intii meelaha lagu dili lahaa ha idhaafo ka waran qur-aanku wuxuu ina baray nebi yacquub waa aabe waa waalid wiilashiisu ay wiilkii uu u jeclaayay walaalkood ahaaye ka yaraa ay ku sameeyeen dembigaad aragteen ceel ay ku tuureen markaana slavery addoonnimo loo iibsaday dembi ka weyn oo wiilal teenagersa ay ku sameeyaan walaalkood ma garan waa maya nebi yacquub guriga miyuu ka eriyey maya idhaafa miyuu yidhi maya wuu isku hayay jacayl iyo nasteexuu ku waday wuxuu mar walba odhanayay in allaha astafaa lakum uddiina falaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun ilaahay islaam buu idii doortay habdhaqan qurux badan ku mintida sidii u hayay iyo jacaylkuu ku hayay iyo naseexadii iyo sabarkii iyo dulqaadkii ayuu reerkoo dhan isu wada keenay marka u dambeeyana wuxuu kaga tegay iyagoo leh nacbudu ilaahak wa ilaaha aabaa'ik waxaan u baahannahay carruurteenna inaanan ku erin gangs bay ku biireen inaanan ku erin timahay la baxeen inaanan ku erin waxbarashadii ka caajiseen maxaa yeelay albaabka markaad u saarto waalid waxay gacanta u gelayaan dembigaa dembi ka weyn qur-aankuna midaasuna baraya waalid dulqaadka ha la badiyo carruurtana ha loo duceeya halahayo janaalkan adaa lagu sameeyey waxaa la yidhaha waalid legacy fadlan subscribe dheh si aad u hesho muuqaalada lagugu talagalay share dheh si aad u hesho ajarka ilaahay awlaadina inaga hana xifdiyo wassalaamu calaykum